ma garanaysaa aabaheed dhalay waa kuwan kasoo horjeeda waayahay kii ay guursatay nolol ka doontay istiri nolol buu ku gelin karaana waa kan soo buriyay mustaqbalkii iyo nimadii intuu kusoo ciyaaray soo furay waa kan soo furay soo argay haa waayahay waxay tiri farxadi way iga dhammaatay marxad way iga dhammaatay dhulkii murugada ku nooli ilmadu dhabanada dareertay dharaaro xun baan jiraayo waxaan dhamayaa xusuuso haraara xunbaan jiraayo waxaan dhamayaa xusuuso aqoon waa layga dhaartay miyaan dhigtay shay dambeeto sawtaan dhexlay howlahooda sow kaa dhabarkii i daalay waxaan dhaqayaa dusuuda dhambaalkani hore ka fiirso markan ay wax suuraysanaysa hadlaysa inantani shaqay ku jirtaaba waayahay oo halkan canaani kaga socotaa waayahay oo waxbarashadeedii baa lagu bedelay in dhabarkeedii lagu xamaashay inantii yareeda qaangaadhka ahayd waayahay waxay tiri dil maa ii dheer gumays dhirbaaxadu waa saleelo dhegtaydu waxay war qaado dhaliil iyo cayma dhaafo qalbiga dhaawacu ku yaalo waxaan ku dhayaa ma noola haa qofka marka disho isubeero gacan baad saartay waa iskaga tagtay laakiin gumaysiga ugu xun waa gumaysiga qofka qalbiga iyo maskaxda laga gumaysto ee hadallada xun lagu yidhaahday qalbigiisaan ka baxayn waxay tiri qalbiga dhaawacu ku yaalo waxaan ku dhayaa ma noola dhibaato kastaa markay ku dhacdo waxaan isweydiiyaa hooyadaa may nooshahay maya ma noola dee yaa dhibaatadan kaas qaadi kara ee xalkan yaa xal ku keeni kara waa cidna dee bas hooyadaa way dhimatay iska samir dhaawac baan dhaawac ku dhayaa bay tiri dhaawac ku dhayaa waxay tiri dhankaan u kacaaba baabax waxaan dhis idhaaba baaba dhaqaaqay ma dhaafin goobta dhammaystiran hooya qaalay dhaankii murugtaan raraayo waxaan dhamayaa xusuuso hadday istiraa faamiliga reer abtigeed u tag aabbahood baa kala dilay oo weji uma yaalla ay kula noolaato ka reer aabbihi kasoo jeeda hadday istiraa inantan u tag aabbaheed baa dee kasoo kaxaynaya oo odhanaya inantaydii anaa haysanaya meel kale ay u dhaqaaqdaa ma jirto meel ay sii joogtaana ma jirto waxay tiri dhulkaa ku hayaan u sheegay dharaarahan kuu imaado abaal ii dhiga markhaasa dhaayaha ii saari dhiirsa bal dhaayaha ii saari dhiirsa laakiinay dhegeysan way dhawaaqaygii ma gaadhin xabaashaada marka imaado ayaan dhulka ku idhahda hooyaday mar keliya i tus laakiin dambe dhul baa ku maqli waa maya waxay tiri dheehyo midabkayga guuray dhalaalkaygama muuqdo tin iyo caday baan ka dhuubtay ma cuno dhuun iyo anfaaco miyaan dhabu seexday waayo waxaan dhamaya xusuusa deeto intaa marka hooyadeed u dirtay ay hooyadeed wixii ay odhan lahayd hadday noolaan lahayd ilaa way sii garanaysay waa hooya moogtay ayay tiina ay suuraysatay inay hooyadeed jawaabtii ay siisay bay ay halkan ku sheegto waxay tiri hooyadiiba hadashoo gobtaan dhalayay dhegeyso dhulkan ku jiraa ogsooni ifkaan ka dhammaaday hooyo inaan dhinto maan jeclaysan wad baa i dhuftay dhegeyso dhambaalkaagiina dhuuxay dharaaro xun baad jirtaa dhabarka hooye adkayso yani iilkiibaad ku jirtaa dhabarka hooye adkayso hooyadii baa fariinta soo dirso hooyadii baa inantii kule dee dhabarka adkayso hooyo anugu kuma soo noqon karaye dhabtayda intaan ku seexsho haddaan kula joogi lahaa maxaan kuu qaban lahaa intan u qaban lahaa waxay tiri dhabtayda intaan ku seexsho hooyadii baa hadlaysaa dhabanka ku yara salaaxo ayaad dhab u seexan leydee waxaan dhex hurdaa xabaale itaalkaa dhiiro hooyo marada dhexda giijo hooyo wakhtaa dhalay aamin hooyo inaan kala dhiman hooyo wakhtaa dhalay aamin hooyo inaan kala dhiman hooyo wakhti baa sababay inaan kala tagno iyo wad laakiin haddaan kula joogi lahaa dee waxaasoo dhibaato anaa kaa garanaysa kaa qaadi lahaa ilaahay ka sokow waxay tiri cishaa iman lays dhex yaaco adduun laga soo dhaqaaqo qiyaamuhu dhici dambeeto ilaah laga dhuman maayo xaqaagu ku dhaafi maayo dadkii kugu dhibay adduunka ilaah baan kugu dhaartay dharaarta waad ka aarsan adduunka subeer haddaad cadaalad ku weydo meesha aanad cadaalad ka weyn waa aakhiro iyo ilaahay hortiisa dee maalinkaasad hooye xaqaaga heli bay tiri adduunka haddaad xaqaagii ku weyday maalinkaasad heli fariintan waxaan uga faa'iidaysanayaa oon halkan fariin uga dirayaa waalid kasta oo haya ilmo aanay dhalin oo waalidkoogu dhintay ama rajay ha ahaadaan ama agoon ha ahaadaane inay xil iska saaraan ilaaliyaan maanta dhibaatada ugu badan cidday haysata waa hablaha yaryar ee rajayda hooyadood dhimatay iyagaa duruufta lagaga faa'iidaystaa iyagaa sharaftooda lagu ciyaaraa iyagaa mustaqbalkooga lagu ciyaaraa iyagaa la cadaadiya la canaadiya waalid kasta waxaan leeyahay niyo aakhiro waa qasab waa lays xisaabinayaaye intaan aakhiro laydinku xisaabin adduunka isku xisaabiya oo xaqaa ubadka yaryar kuwiina sad u ilaalinaysaan xaqooga ku
kuwaana iskaga ilaaliya baan leh. waa tahay haddaynu gaadhno dhinacii maansadii kale haa maraan hiiraan kacay maraan aroorye hiiraan haween maraan hiir kacay arooryo horaad haween dhowran hor joogsaday baa buu yidhi haye mid hoyga lamooda aan ka helay haye bal intaan uba heesa aan hal tirsho qof oo heeladan hooyo bulgeed waayahay qisada hore ugama sheekeyn sbeerow laakiin caawa ka sheekeynaya way soo koob waa soo kobay haddii lahaydmo haye maalin maalmaha ka mid ah dhakhtarkeena weynaya hargeysa Waay. ayaan anigu ku jirayo qalliin baan gelayo deeta markan dhakhtarkii ka baxay ayaa 2 wiig kadib ayaa layla ballamay laygu yiri kaalayo qodbihii iyo waxbaa layga jiray way deeto anigii hooyadii macaan Faado Maxamed Yuunus Ay. ilaahay cimriga iyo caqliga iyo caafimaadka waxa uu barakeeyay Amiin. iyadii hooyooyinka Amiin. Soomaaliyeed ee muslimiinta ah dhane amiin ayaan wada soconay waa tahay deeto markii aniga qaybta jajabkaan ka soo baxnay ayay hooyadii ku tiri gabadh baynu soo eegaynaa waa tahay oo eeday had gabadh imika dhimatay Allah u naxariisto deeto 2 hablood baa naga soo horbaxay waa tahay nin waatan la yidhaahdo ragga damac iyo dacri kaba dhamaato cajiib 2 hablood mid baa quruxtii ahayd ilaahay u dhameeyeyba malaha waxba kama reebin baan isiri waa tahay deeto inantii markaan arkay inantii waan ka helo warniyo inantan miyaad garanaysaa nolosha ku qabatid waa tahay ayuu shaydaankii naftu ii sawireen iyo haddana war hooyadaaba la socotaa inay xishooyo hablihii waan dhaafnay waa tahay kadib hooyadeyd waxay gashay dhakhtarkii qaybtii bay gashay aynu soconay anigu albaabkan ku sugayey way markaa qaybtii dumarka ahayd oonu maan gelayn way 2 hablood baa soo noqday 2 hablood markay soo noqdeen ayay inantii aan ku leeyahay inantii quruxda badnayd ayaa salaantay magacaygo saddexan bay iigu dhawaaqday waxay ii sheegtay in xaaladeyda ogeyd oo dhakhtarkii inaan ku jira xataa ay ka warhaysay oo maalmaha ka mid ah ay igu timid oo aan hurday oo naan is arag waayahay